booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku yimi caasimadda dalka Norway oo Oslo ee qarameed taasoo casuumad uu kaga helay dalka Norway ayaa ahayd maalintii gabagabada Cabdiweli Maxamed Gaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan ballaaran la qaatay Soomaalida dalkan degan odayaal dhaqameed culimaadudiin aqoon-yahan caruur iyo haween ayaa shirkaasi yimi si ay ugu taageeraan oo ugu soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya booqashadiisan gaaban ee uu dalkan ay degan yihiin uu ku soo gaaray kulankan lagu qabtay bartamaha magaalada Oslo ayaa ahaa kulan ay ka hadleen mas'uuliyiin sare oo degan dalkan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya booqashadiisan uu ku yimi magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa waxa ku weheliyay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ahna ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Cabdiwahaab Gaas sidoo kale waxa marti ku ahaa golaha Soomaalidu ay ku kulmeen ee lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha ambassador Nuur Cadde ra'iisul wasaare Cabdiweli ayaa kulankiisan uu la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka Norway ugu horeyntii waxa uu soo jeediyay salaan aad u qaali ugu siday maamulka dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaare Cabdiweli ayaa si toos uga hadlay dadka Soomaalida ee degan dalkan arrimaha argagixiso ee dalka ka jirta iyo sida al-shabaab xaaladeedu maanta ay ku sugan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku codsanayaa dhamaantiin fadhiisataan marka ugu horeysa sharaf ayay maanta inoo tahay inuu nala joogo ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Gaas inuu nala joogo aad iyo aad u mahadsantihiin ugu horeyn inta ayna u gelin programka aayadaha quraanka kariimka waxaynu akhri doonaa سيد أيانو أخريدونا سيد الشيخ أيانو أخريدونا آياتها القرآن الكريم كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Then I would like to give the opening word for Mr. Kjell Haraldar from the Norwegian Mr. Foreign Affairs. Thank you. And we are very grateful to the Norwegian state for your help and support in order to make this evening happen. Thank you. Thank you very much. I just would like to say thank you to the Prime Minister and his delegation for coming to Norway on this visit. This is a big occasion for Norway, for the Norwegian Ministry, but I guess also, and I think that is shown by this big gathering, that's a big event for the Somali community living in Norway. We have had good talks, good meetings with the Prime Minister and his delegation who came here just after the London conference on Somalia. And we are very happy that he took this time to come to Norway. Now, I understand that there are hardly any non-Somali speakers except for myself here. So I think we will conduct most of the meeting in Somali. But we are looking forward to hear what the Prime Minister is going to say, and I also know there will be various groups from the local Somali community here who also wish to want to wish the Prime Minister welcome to Norway. runtii waxaan ugu talagalay barnaamijkeena maanta annagoo ah guddiga qabanqaabada waxaan ugu talagalay haddii ilaahay idmo inaanu noqono aynu maanta community ahaan ku soo dhaweyno Prime Minister Cabdiweli halkan haddii ilaahay idmo taas oo micnaheedu yahay inaynu maanta xaq u yeelano inaynu soo dhaweyno dad ayaa salaami doona khudbadaha sheegi doona Prime Minister haddii ilaahay idmo uu inala hadli doona marka Prime Ministerka waa aragtaan waa Cabdiweli waxaa la socdaa
ra'iisul wasaare ku-xigeen cabdiwahaab oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad isla markaana wasiirka ganacsiga iyo warshadaha waa reer maalmo waxaan si kala soo dhaweynaynaa ambassador nuur xasan xuseen oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Talyaaniga magaalada Roma isla markaana ah wakiilka u qaabilsan wadamada midowga Yurub ee Soomaaliya xildhibaan Yaasiin Saad isna waxa weeye xildhibaan Soomaaliyeed oo ka tirsan golaha xildhibaanada ee Soomaaliya weeye marka runtii protocol ahaan iyadana waa sax inuu xildhibaan Yaasiin halkan maanta isaguna soo fadhiisto isagoo ka mid ah xildhibaanadii Soomaaliya oo markaa metelaya dhinacii baarlamaanka Yaasiin soo dhaweey waxaa jooga injineer Elisow oo runtii ah la taliyaha koowaad ee madaxweynaha waxaan leeyahay arrintaa haddaan halka ku badiyo waxaan leeyahay way iman doontaa marka ra'iisul wasaaraha injineer Elisow isagana waxa weeye nin ah la taliyihiisa oo isaguna halkan noogu yimi oo isaguna la socda garabkiisa ku aragtaa haddii la yidhaahdo markaasoo waxaan si toos u soo dhaweynaynaa Xasan Yare oo ah advisorka ama waxa weeye ninkii isaguna ah xoghaynta madaxweynaha ka mid ra'iisul wasaaraha ka mid ah ayaan leenahay adiguna soo dhaw Xasan gabadh ayaa naga maqan Sagal oo runtii ayana gabadha iyana ka mid ah xoghaynta iyo dadka la taliyaasha ama xoghaynta ku xeeran protocolka ra'iisul wasaaraha Sagal anigu halkan kuma arko laakiin waxaan leenahay si gaar ah ayaan iyadana soo dhaweynaynaa Asalaam Abdulwali runtii aad iyo aad ay sharaf noogu tahay maanta inaad halkan noogu timaado anigoo ku hadlay magaca guddiga qabanqaabada dadka maanta hortaada fadhiya waxa weeye jaaliyadii Soomaaliyeed ee dalka Norway 19 gobol ee Norway way isaga yimaadeen qaar badan oo ka mid ah waxaa ku jirta duqeytidii waxaa ku jirta salaadiintii waxaa ku jirta culimadii waxaa ku jirta dhalinyaradii waxaa ku jira haweenkii waxaa ku jira qof walba markaa runtii ixtiraam iyo qadarin aan u hayno hawsha imika aad qabatay aad ka anbaqaaday meeshii markii hore qoladii kale ku joojiyeen waxaanu leenahay ilaahay kuu galo waad ku mahadsan tahay hawshaad wado dad badan baa runtii hadli doona laakiin waxaan jecelahay inaan ereyga siiyo ugu horeeya imika walaalkay cabdiwahaab maxamed siciid oo ka mid ah guddiga qabanqaabada oo markaa kelmad gaaban halkan ka soo jeedin doona oo ku saabsan guddiga iyo qabanqaabada cabdiwahaab soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم guddigii ka dambeeyey qabashada hawshan waxay ka koobnaayeen qaybaha kala duwan ee Soomaalida dad waxay ahaayeen dadaal wanaagsan muujiyey firfircooni badan muujiyey ixtiraam dhexdooda muujiyey midnimo muujiyey si hawshan ay u suurta gasho aad baynu u mahadsanyihiin sidoo kale waxaan halkan ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wafdigiisa la socda ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Samiga Cabdiwahaab safiirka dowladda kumeel gaarka u fadhiya EU-da Mr. Nuur Cadde afhayeenka dowladda Mr. Elisow iyo wafdiga kale sharafta leh la socda wasiirka Prime Minister waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee halkan isugu timid si ay u dhageystaan una sharfaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas intaan hadalkayga u gudbin waxaan jeclahay inaan xuso idinkuna aad barataan guddigii hawsha qabanqaabadeeda ka dambeeyey waxaan ka codsan ma la jaan qaadnaa oo ma ka mid noqonnaa ma midownaa meel kastoo aan dunida ka joogno si sharafteeni iyo karaamadeenni luntay aan u soo celino guulaysta jecelahay markii aanu maaragtay dadka xoleynay aan doonay salaanta inaan soo jeedino wax alla waxaanu ka tagnay ma jirto wixii aanu awoodi karinay ayaanu samaynay dumarka ayaa sahlanaa waxaan jecelahay inaan imika u yeedho Hoodo Maxamed Cabdilaahi oo runtii ahayd hooyadii Soomaaliyeed ee ugu horeysay ee dalka Norway timaada
inankeeduna uu dhashay 1977 maanta uu qaatay shahaadada ugu sarreysay PhD-da marka Rooda Maxamed Cabdilaahi waxay halkan ka soo jeedin doontaa erayo salaam bismillaahi raxmaani raxiim marka hore dadweynaha sharafta leh meesha isugu yimid waa salaamantihiin marka xigta waxaan mahadnaq u celinayaa guddiga qabanqaabada ee maanta ii suurtagelisay inaan halkan ka idhaahdo hadal yaro gaaban marka xigta waxaan doonayaa inaan wax yaro taanu iska sheego waxaan ahay magacayga waxaa la Rooda Maxamed Cabdilaahi sala idiin sheegay waxaan ahay gabadh u dhalatay oo ka timid dalka la yidhaahdo Somaliland waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan ka imid 36 sano ka hor imika sanadkan hadda ku jiro waxaan ka mid ahay qurbajoogii hore tilmaanta iyo sumada lagu qartaa tahay Soomaalinimada waxaan u imid iyagoo ilaa 8 9 10 gaadhay nin afar ka mid ah yihiin siimaan markii aan midna walaaltinimo Soomaalinimo ayaa naga dhaxaysay anagoo tii ku jira ayaa burburkii dhacay dabadeedna daadkii iyo qaxoontigii yimid ayaa na qaaday oo qofkaaga meel ku tuuray lagu tuuray anigu intaas ayaan horta kaga baxayaa sharaxaadayda waxaan ahay anigu waxa u muhiimsan waxa weeyaan meeshan doona aan ka imaado inaan ahay gabadh Soomaaliyeed oo Soomaalinimada qaan ku tahay waayo kulli adduunka meel baan kaga dhalan lahaa waxaan ku dhashay Somaliland marka xigta anigoo ku hadlaya magaca hooyooyinka haweenka Soomaaliyeed ee dalka Norway ku degan ee ku nool gabdhaha Soomaaliyeed ururka aan gudoomiye ka ahay Somali Community Club oo ah urur Soomaaliyeed oo magaca Soomaaliyeed sita magaca qoyskayga iyo kayga waxaan ku soo dhaweynayaa qalbi furan iyo niyad wanaagsan ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Maxamed Gaas iyo wafdigiisa ballaaran ee uu wato la socda waxaan leeyahay haddaan haweenka siiba ururka la gudoomiyaha ka haweenka memberka ka ah waxaanu taageersanahay oo ku faraxsanahay go'aamadii ka soo baxay dalka Ingiriiska konferenskii lagu qabtay ama shirkii lagu qabtay ee ay ka mid ahayd qodobadiisa aniga markaas sida aadka ay taabtay dhalinyaradeenna iyo caruurteena hubka sidata in loogu bedelo qoriga waxbarasho iyo buug dagaalku maaha uu hub la qaato European iyo adduunyada hore umatay waxay ugu dilayaan waxa weeyaan waa cilmi marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa dawladda adigu aad ka tirsan tahay oo maanta aad waftiga iyo adiguba aad ka socotaan iyo kuwa dambe ee idinka daba dhaxli doonaaba inay dhalinyaradii caruurteena meel walba ku baaba'day haddaynu nahay bulshada Soomaaliyeed meesha doontaba adduunka ha ku dhalato ha ka timaadee in loogu bedelo qoriga waxbarasho haddii aan nahay Soomaalida Norway degan dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ee Norway ku nool sida oo kale waan dayacanahay waan kala daadsanahay caruurteena weeyaan iyaguna kuwa dhibaatada ku dhacaysa inaguna waa inaan ubadkeena u soo jeedsano isku duubnaano dalkan aan joogno waxaanu ka nahay kulligeenba Soomaali intaas ayaan kaga baxayaa waana mahadsantihiin mar labaad waxaan idin leeyahay qalbi furan iyo niyad wanaagsan kusoo dhawaada aad ayay Rooda u mahadsan tahay runtii maadaama ay had iyo jeer sahlan tahay in ay haweenku ismatalaan runtii anigoo taa odhan kara ay ka sahlan tahay waxaan jeclahay haddana inaan generationka dib ugu noqdo waxaan u yeedhi lahaa Aniisa Nuur oo ah inan iyadoo halkan ku kortay iyadoo caruura halkan timi
iminkana qaadatay dhammaystay shahaadada maaragtay cilmigan siyaasadda garyaqaannimada dhammaystay islamarkaana ka shaqaysa iminka cisbitaalka ulvol oo ka shaqaysa had iyo jeer dadka xuquuqdooda ay dhakhtaradu meel kaga dhacaan aniise nuur ayaa halkan kelmad gaaban oo salaamka ka jeediyay. السلام عليكم. مدير رئيس الوزراء بروفيسور عبد الولي قاس شرفت له. أنا جوا أنيس نور. كنا هاد لاين مقعد غيره كنا لطيف كنا كرتين تمك مروي. وحنا شرف نوع إن نقول سود بينه. هذا يحبنا نقول سعادة مجال الوصفة. مدير رئيس الوزراء. مدير رئيس الوزراء أديك يحبنا وقتك على كمدة كسر وعلى وطن كنروي. دميرة آد أي وفرح سنين إن لكل ما رئيس الوزراء سمعت مركي وهريسي. سيدا وكلا وحينات هاي فرصة تاريخ له وقيمة له وقالئة. مدنة يجدون الصلاة وشمالات وكتب من دميرة الصوماليات أدب كان فنون. والله كنتين. أنتم waxaan ugu talagalay heeso kale oo dhaqanka Soomaalida taabanaya oo ayaan heesan waan ugu talagalay muusig iyo dhaqan laakiin bal waxaan jecelahay inaan xagga duqeytida jaleeco haddana ixtiraam waxaan mudan inaan idinku yeedho dowliye sare Shahar Cabdi Afrax oo isna ka mid ah odayada Soomaaliyeed ee degan dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo oo soo dhaweyn doona. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد هل كان وحن كسو دوينا يا رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية الصومالية عبد الولي محمد قاس وحن كان كسو دوينا يا وهل كان كسو دوينا يا رئيس الوزراء كحجين ككواد عبد الوهاب الغاس وحن كنا صدق من أمباسطور نور حسن حسين نور عدي وحن كنا صدق من يا وحن كنا صدق إنجينير يريسو أو أفاينك دولة الديمقراطية الصومالية إسلام مركزنا لطليها رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية الصومالية أنت كدبو waxaan rabaa inaan u sheego ummadda maanta tiimka uu hogaaminaya ra'iisul wasaaruhu waa tiimkii nuurka ka ifaaya magaalada Soomaaliya soo xoogooda ku soo saaray waxaa kamid ah ayagoo nala mid ah qurba joog markoodii hore ahaa geesinimo inay u bareeraan inay tagaan meel ay xabaddu sidaad ogtihiin ay kaga socoto niman alqaacidana ay joogaan waxbana aan u tirayn caruur iyo cid kasta waxay u turayaan aanan jirin inay u babac dhigaan dalkaas inay ka soo celiyaan sumcaddii oo lahaa dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed xushmadda ay leedahay inay dib u soo celiyaan dib bay u soo celiyeen oo waxaa ka mid ah dib inay u soo celiyeen magaalada Xamar wada aragteen maanta oo caasimadii jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed ayaa maanta waxay tahay meel xor oo nadiif ah oo ka nadiif ah nimankaas alqaacida ah waxaa kaloo laga nadiifiyey oo ay ku leeyihiin sharaf iyo mudnaan ra'iisul wasaaraha iyo tiimkiisii oo dhanba magaalada Baay iyo Bakool intaasoo dhan ayagoo sii wada ayaa haddana waxaa nala gaarsiin heer ah caalamkoo dhan meel ay iskugu wada yimaadaan oo looga hadlo keliya hal mawduuc keliya oo Soomaaliya la yiraahdo waxaan leenahay marka annaga haddaan nahay reer Norway oo jaaliyadda Norway waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan kan iyo laab baan kugu soo dhaweynaynaa annagoo ku dhahayna wax nooga tag waxna nagu abuur wax wanaagsan nooga tag wax lagu daydaada nooga taga marka annaga waxaan kaloo aan leeyahay ra'iisul wasaaruhu iyo tiimkiisii oo dhanba waxaan leeyahay maanta lama arag lamana maqal
meesha ay maanta ee Soomaaliya ay gaarsiiyeen waxaa ka mid ah in lala xisaabtamo oo ka soo baxay shirkii ka dhacay UK London ka dhacay in lala xisaabtamo nin kasta oo dhibaato geysta dalka u geysta amba caqabad ku noqda dawladda socota Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya taasoo laga xayirayo wax walba oo leeyahay walaalahay jaaliyadda reer Norway waxaan leeyahay oo aan leeyahay cabsida ha idinka baxdo oo dalkii ha lagu noqdo ha la taago oo dalkii dawladdaana waxaa la qabto halkan waxaan kaloo ku soo dhaweynaya oo aan hilmaamo inaan waxbaan ka tagaan iloobay waxaan ku soo salaamaya halkan ku soo dhaweynayaa dawladda Norway oo shirkan noo qaban qaabisay oo sida wanaagsan u soo dhaweysay dawladdeena Soomaaliya waxaa kamid ah mar walba jaaliyadda Soomaaliyeed waxay la kulantaa oo soo dhaweeya oo danahooda raadiya oo waxooda raadiya oo midnimadooda raadiya Sheekh Dalin oo hadda hortiina fadhiya Rina Eric Silverman nimanka dadkaasoo dhan waa dadka soo dhaweeya jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool oo Norway ku nool oo jecel mar walbaba wanaagooda iyo midnimadooda inay midoobaan inay meel ka soo horjeestaan jecel waxaa kaloo dawladda Norway aan ugu mahadcelinaynaa inayna soo dhaweysay oo carruurteennii odayaasheenii dhallinyaradeenii kulli inay u furtay soo dhaweyday ay baasabooro siisay ay soo dhaweysay halkaan ay ku soo dhaweysay tacliin iyo wax walbana ay bartaan intaas waxaan leenahay mahadsanidin maalin baan idin gudi doonaa walaalayaal waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin kaliya laabna waxaan ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inaad maanta alxamdulillah waxaan ku leenahay meel ka soo la tago inaad nooga tagteen saldhig wanaagsan oo ciidan leh oo meel laga bilaabo maanta leh inaad nooga tagteen sidaas daraaddeed waxaan leeyahay soo dhawaada kaliya laabaan idinku soo dhaweynaa haddaan nahay jaaliyaddii reer Norway waxaan leenahay cumrigiina ha dheeraado cadowgiina Allah qabto dhibaatada dalka ku jira Allah ka saaro nimco iyo wanaag Allah noogu bedelo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi aad ugu mahadsanyahay Shaar Cabdi Faxad ilaahay idinku waxaan jecelahay waxaan geli doonaa qayb muusiga oo maaragtay Cali Cismaan iyo Cali Saaqeena soo jeedin doonaan ka hor waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdullaahi Qadar oo ah wiil isaguna dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee runtii aan muddada dheer dalka joogin annagoo u eegnay dadkii dalka ku koray kuwii ugu soo horreeyey iyo kuwaan ku raagin baa kelmad halkan ka soo jeedin doona Cabdullaahi Qadar ayaa soo dhaweyn doona ra'iisul wasaaraha. Waalaikum warahmatullahi wabarakaatuh dhammaan waan salaamayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xalfadan aad iyo aad u qurxoon sidoo kale waxaan salaamayaa oo kale martida sharafta leh kastoo waan inaan ishayn waayaa moodaa dhaqanka Soomaaliyeed respectiga waa qayb aad iyo aad u weyn markii dhaqanka Soomaalida la fiiriyo marka waxaan nala joogo nin dawladda Norway ka socdo sidaas darteed waxaan damcay in aan mahadnaq yar iyo salaan yar u gudbiyo dawladda Norway oo English ah u bedelo marka iga raacaan Good evening, Honorable Prime Minister, Special Representative of Norwegian Government, Somali Ambassador to the European Union, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's great pleasure for me to represent Somali youth in Norway. I warmly welcome you to Norway, Mr. Prime Minister, and your delegates, on behalf of Somali youth. Mr. Prime Minister, welcome once again. We are very happy to see you in Norway. As we know, Norway is a home to thousands of Somalis who ran away from a war. Norway has given us an opportunity to live and help our people back at home.
on behalf of Somali youth in Norway, we are very grateful to the Norwegian government and its people. Still, maalin dhaweyta waxaa dhacday meel Soomaali iskugu imaadeen baa lagu kaftamay. Soo marka xalka Soomaaliyeed markii laga hadlayo dumarka waxay u soo riixeen xagga ragga u soo riixeen waxay dhaheen dhibka dhan waa ragga waxa keeno wax qaribayo wax laynaya. Odayaasha waxay nagu soo riixeen dhalinyaradannadi waxay dhaheen waxa wax laynayo afka duubtay waa idinka dhalinyarada. Waa u sheegay waxa ku yiri marka anaka dhalinyarada mar walbaba waxaan u taaganahay horumarka iyo difaacidda ummadda Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed haddii ay tahay taariikh hore iyo haddii ay tahay taariikh dambe markaan leeyahay dhalinyarada kulli al-shabaab ma ku jiraan baa u maleynayaa dhalinyarada sida ay wax walba oo ay qabanayaan ee daacadda ugu yihiin kulli waxaan u maleynayaa mudane Dr. Cabdiweli baa ka sheekeyn doona ciidamada dawladda ku meel gaarka sida u dagaalamaan geesinimada leh ee naftooda ay ugu barbardhigaan ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisaba dhalinyarada kuwa al-shabaab koo dagaalamaya maybe waxa weeye they have been intoxicated macnaheedu waa drugs ugu duray weeye ayagu waxaa laga yaabaa inay isu qabaan inay Soomaaliyiin sidaas darteed waxaan ka codsanayaa wixii lagu shubay oo cadowga shisheeyaha uu ku shubay dhalinyaradannada in uu ka shubo asaga oo isticmaalayo in dhalinyarada rehabilitation loo furo iskuulo loo furo shaqana loo abuuro job opportunity si dhalinyarada Soomaaliyeed oo maaragtay maskaxda laga rogeeyo ay chance u helaan dalkooda ay u difaacaan oo ay noo president gareeyaan waad mahadsantihiin dhammaantiin waa aragtaan waxaan jeclahay intii inaan nimcoodna qaybta dhaqanka cali cismaan cige iyo cali saaqay ay nala joogaan waxaan jeclahay marka galina waxoogaa aan degmada ugu raaxayno cuudka iyo heeso munaasabadan taabanaya waan jecelahay inay noqdaan may iyo maxaa kale labadaba si aan isku midaynaynka uga saaro meesha. My name is Ali Osman Cige. I am an employee of the municipality of Oslo. I'm not going to hold a speech here, but I'm going to sing for the Prime Minister and the other excellencies which are here. I just want to tell our distinguished Norwegian friends the content of the song. Very short. Actually, Mr. Prime Minister, I chose for you and for the rest of the Somalis sitting here a song, a somewhat political song made by the late great poet Hassan Sheikh Mumin, and it actually describes, I mean, most of the African leaders are described as corrupt, incompetent, and so on. And he's going to give us a message, and I hope you remember this message, the content of this song. He's asking, well, everybody knows that fire, medicine, and water are very essential for life. So he wonders, how come that fire gets cold or becomes frozen? How come that medicine becomes sick? How come that the river becomes thirsty? And he tries to provide some answers for these questions. It's somewhat political, as I told you, Mr. Prime Minister, and I hope you remember that. He says, in the case of fire, which gets cold, it's like an elected person or a bureaucrat who doesn't fulfill his responsibility. The medicine that gets sick is when we don't respect the law of the land.
about that river which is thirsty. It resembles a person who is very rich but greedy at the same time. He wants to have everything. Now we're going to sing, Ali Saab, my friend, and I are going to sing the song in Somali, and I hope you will be patient. It will be followed by another song in my mind, because these two languages are very important in Somalia. It sends another message that Somali is not only Somali, but there's also that language which the mind, or the my mind would call my mind. So welcome to the music. Yeah.
سيد داهر الشيخ محمد ويسمونا كلمة قابل وصلانا هذا الكسو شيدين دون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد أولا waxaan salaamayaa wafuudda sharafta leh oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali iyo wafuudda la socda waxaan leeyahay Professor ra'iisul wasaaraha iyo wafuuddiisa welcome to Norway waxaan kaloo mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada ee sharafta leh ee hawshan iska xilsaaraysa iska timaadeen ka soo dhexbaxay jaaliyadda ku nool waddanka Norway waxaa kaloo u mahadnaqayaa xukuumadda Norway iyo bulshada Norway oo siduu dowladda sare uu sheegay nagu soo dhaweysay waxaan si aan macquul ahayn gurigii labaad waxaan dardaarmayaa in yar odayaasha ugu waaweyn baan ka mid ahay Norway dadka jooga markaan saalahay dadka kol baan ka mid ahay odaynimada Soomaalida waxaan leeyahay jaaliyadda Norway ama Scandinavian-ka ee Norway shirka yimid sacad keliya lagama rabo waxaa laynaga rabaa qalbi mid ku jira oo dalkeenni inaan u noqonno oo liida iyo aljaziira carruurta geenaya haweenka sanadka gudihiisa aljaziira badda cas iyo liido international iyo badda cas waan leenahay waxaan leeyahay aan noqonno xukuumaddan waxaan ku codsanaynaa inay noo diyaariso goobihii aan carruuraha ku soo dalxisgelin lahayn eenu keenayo ummadda Soomaalida halka isugu timid waa u mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ra'iisul wasaaruhu waa ogyahay ragga la socda walaalada waa qurbo joog qiimaha ay ku fadhiyaan saacadaha aan meesha fadhino ruuxaan shaqaynaynin uma jiro waxaa marka labaad aan uga mahadcelinayaa xukuumadda Norway waxay noo abuurtay shaqaabo saan u dhannahay ra'iisul wasaare agtarkana waan shaqaynaa dad ka jira waddankaana waxaan ku leeyahay arrimaha baarlamaanka sida hadda beesho oo kale xukuumadda Norway ee Oslo ka mid baan nahay dad ka muuqdaan nahay sidaa darteed dalka ugu dhaqaala roonna waan joognaa ugu aadanan roon waddankeennii aan maalgashanno waxaan leeyahay jaaliyadda Masar Syria UK meelo kale galab hala ilaawo halan maal ilmaha lagu celiyo Soomaaliya Muqdisho waxaan leeyahay anu kama quusanin al-shabaab weli in loo yeedho miiska wada hadalka ra'iisul wasaare in la furo iyo waayo al-shabaab ma wada ajnabi agtarkooda Soomaali wey ha loogu yeedho miiska wada hadalka geed dheer iyo gees hoosana loo furo intaasaan kusoo turjumayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclahay maraan waqtigiisa soo furayaa inaan iminkana kusoo dhaweeyo Cabdulaahi Ciise raadiyare oo isaguna ka mid ah odayada iyo culimaadiinka Soomaalida ee dalkan Norway degan ama magaalada Oslo Cabdulaahi Ciise soo dhaw kelmada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd dhammaantiin waan salaamaya marka hore waxaan doonayaa halkaan inkastoo raggii wada horeeyay salaantii wada horumareen iyo wixii aan soo xaqiiqo oo dhan baa rag la sheegay intii wax yar baan soo salaanta maarka raacinaya anigu waxaan halkaan ka salaamayaa dhammaan mudanayaasha iyo marweyta dhammaan dadka waan salaamayaa marlabaad waxaan halkaan ka salaamayaa wafdiga Soomaaliyeed ee safarka dheer lagu yimid oo wado ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Gaas iyo ambassador Nuur Cade
iyo wasiirka ganacsiga ana rasuul ku-xigeenka cabdiwahaab iyo xildhibaanka iyo yariiso waxaan horta kaloo dhammaantiin waan salaamaya waxaan kaloo halkaan mahad u celinayaa dadkii soo abaabulay kulanka qabanqaabayaasha ahaa halkaan wadafadhiidhagaan dhan sida gaasho kale iyo kuwa amaarka mas-uul ka yahay injineer cabdicismaan gabadha ubax iyo axmed xasan dhammaantiin markaan waxaan ka jeedinayaa salaan aad iyo aad u qiimo badan waxaa kaloo iyadana halkaan salaan aad u qiimo uga soo jeedinaya dadkii sababay dowladda Norway in shirkan fursamo maadaama aynan awood dhaqaale aynan u haysan oo ay halkaan maanta inaan ku kulano meelaha ugu muhiimsan ee waddanka ka mid tahay waa dowladda Norway wasaaradda badbaadada wasaaradda arrimaha dibadda ee farqeed dhammaantood salaamay waxa kaloo kulli runtii waxaan ka soo hadlo raggii baa iga wada hadlay si gaar uga hadlaya waxyaabo yaryar oo aan soo qoray waxaana aan uga mahadcelinayaa dadkii dowladda Soomaaliya ka socday oo waqtigooda kulmiyay qaaliga ahaa siiyeyna inay ummadda Soomaaliyeed 20kii sano ee dowlad la'aanta ahayd ku habsaday colaadda dabadeeraatay kursi dib iyo dacmi gaajo iyo macaluul iyo masiibooyin rabbaani ah sida ay ka mid ah tsunami oo kale ayaa naftoodii u horeen damiirkooduna siiyey in ay ka dhowrsan waayeen dadkoodiina iyo dalkoodiina baaba'ay ay doonayeen inay u shaqeeyaan runtii aad bay ugu mahadsan yihiin dadkaas waxaan jeclaan lahaa maadaama dadkeena halkan ku nool ee Norway in aynu maanta dowladdeedaas aynu garab istaagno oo aynu ku taageerno maadaama aynu dalka hore u marayno kamida ka joogo ku nool dhaqaalahaan inaynu naf iyo maalba wixii aynu heli karno aynu dowladdeena ku taageerno ayay runtii anigu aan dis joodinaya dhibka kaloo ina haysta waxaa weeye waxaynu haysanaa dal ballaaran oo aad u baaxadiisu u weyn tahay jugraafikal ahaan wuxuu gaarayaa dalka Soomaaliya haddii la fiiro 637,650 kilomitir oo square xeebta aynu haysano waa xeebta Afrika ugu dheer iyo maxaan ku leedahay Middle East waa 3,300 oo kilomitir maxaynu uga faa'iidaysan weynaa dalkeena hor fiirsan يعني dhaqaalaha khayraadka ku jira waddankeena petroolka ku jira macdan kasta ku jira waddankeena waan ku filan yahay dadka Soomaaliyeed oo dhan gobolka inta ay walaaliga jiraan iyo inta dalkeena uu leeyahay marka runtii waxaan aaminsan waxayna baabiyo waxa weeye waa naf jecelays iyo qabaa'il baan baabiyo marka sidee baynu waxaan uga bixinaa waxaan uga bixinaa runtii waa waqti intaynu isleeyihiin 20 sano isbaabiyo maanta inaynu isku ilowno maanta diblayska inoo baxaya dowladda Soomaaliyeed maanta ugu awood badan ama ugu weynay ee kamid yihiin waqtigeena inaynu iftiimeena bal aynu raiiska iyo nasiina aan raacno dhageysanana aynu ku dayano dadkeena Norway ku maadaama aynu nahay dad kala qoqobnaa oo aan islaamisayn laana waxa weeye dadku 130 urur baynu nahay qabaa'il badan baa dadka u kala baxaya maanta waxaad moodaa inaynu isku qalbinahay laana waxa la geelo markuu isku calool yahay baa leeyahay habeenku uu aroorka yahay وهو يعيد فلوس على رأسه على رأسه وحنا نرجع عاوين مش معرضنا هاي لأنه دولة سومالية ما إحنا ولا ما قررت يعني هذا تمكن مشكلة يعني ملك الرجال السيد شاليه ده أنا الله أساسي لها الله تعجير لها ما لا يلوث وجنس لهين دل كيرنا يريدون أن الله يرحم تعالى شقيه لما تيجي والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan leeyahay assalaamu calaykum anigu oran maayo madaxu iyo mudanayahay waxaan leeyahay waa diinta islaamka markay horeysiisa waxaan idin sheegayaa oon halkan rabaa inaan wax yar ka sheego anigu waxa weeyaan laba saaxiibada iyo walaashayna waa gabadhii muqdisho أنا waxaan ahay gabadha waqooyiga reer Soomaaliland waxaan laakiin gabar Soomaaliyeed ma aha markii Soomaaliland markii Soomaaliland ma inay jinaacadooda qalinayaan Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed waa dad nabada waa dad walaaladiin joogaan cid walba joogto Soomaaliya balaagan haweenka Arabaa ma rafaanayo waxaan ku idhahdaa أنا بروح أنا أنا لو شمس لو ما بعرف حتى يجي بالنوت لي ما أقفلت من الحويرة كم نقول. وأنا يجي ذاك الصوت إسمه الشباب يا بتاعي كلا بحير. تاسونا ويا راح كفتن أختي دينه وقت ما جبوا وحنا نقول له الصومالي ده
especially ragoo ilaahay intaad ka yaabtaan ama mar walba ragga waan ka cabtaa waxaan uga cawdaana waxa weeyaan gabar soomaaliyada baa hay soomaali doona soomaalinimadana jikan waxaan idhahaa rag soomaaliyeed iyagana waxaan lagu sameeyey iyo waxaan lagu shubay iyo waxaan loo sheegay laga shubo oo oran al-shabaab hal eriyado al-shabaab mid waliba gurigiisa intuu qoriga qaabto la seexdaa ayuu kala soo toosaa hooga soomaaliyada anagaa waa dhashay nagama maarmaan oo dee nagama go-aan marka iyagana waxaa leeyahay allaha soo hanuuniyo allaha soo hadeeyo dowladda soomaaliya ee iminka joogta kumeelgaarkaan waxaan leeyahay hambalyo waxa wanaagsan ay qabteen iyo waxa wanaagsan ay sameeyeen oo ku hambalyaynaya bal markaa weeya anamay kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديار الله هنا وحنا والله قاعد dadku qadar isku baxay anigoo ku hadlaya qodobjoogta Soomaaliyeed ku hadlaya qodobjoogta Norway ku hadlaya dumarka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa dawladda Soomaaliyeed oo ahayd dawladda ugu horeysay muddadii 20 sano ah iyadoo socota martimid ra'iisul wasaare iyo dawladda waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan si gaar ah kale aan farxad u ah aniga ra'iisul wasaaruhu waxaan ka soo wada baxay iskuul aniga ra'iisul wasaaraha familkiisa aabahay iyo aabihiisba waxay halmadna saaxiibo arabnimo ayaan soo noqon taasina way soo dhaqaajisa joogaanba ha noqdaan kuwii noqda dad wadaniyiin ah oo wadankooda u halgama oo soo celiya soomaalinimadii gaar u mahadnaqaya dowladda Norway oo noo samaysan wadankii labaad ee noqda inaan baasaboorradooda xuquuqdooda magaca wadanka Norway aan meel ku warno ayana taas waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dowladda Norway waxaa jooga shaaciye waxaa jooga caalamka waxaa jooga Royal TV Universal u jooga yes why not qof waliba uu jooga intiina aan magacaabin shaaciye uu jooga intiina aan magacaabin waxaa leeyahay sidaas ku qanca waa mahadsantihiin aad iyo aad mahadsantihiin waxaan jeclahay runtii saynu ku guuldarayno waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo wuxuu hadal ahaa oo sharaf oo rasmi ah oo midlaga ahay marka kulay nin eedayn maayo farka horaa ku ahaa laakiin nin eedayn maayo hadda hoogaa dhalinyaradu waa iloobeen ila tahay intaas kadib mar haddii aan hooga dhaqameed sharaftii laydi muujiyey sidaasaan aniguna idinku muujiyey ammaantii laydi ammaanay sidaasaan aniguna idinku ammaanay laakiin maadaama oda dhaqameed aan nahay oda dhaqameedku wax ka xisaab badan waxaan kaa codsanaynaa marka gaala ra'iisul wasaare 60 sano ayaan anagu nin wax mataraa usoo sacbinaya oo dalaysta ah oo qaaqabilaysta ah oo waddan wax taray raggiina hadda hogaanka noo hayo ciribta ay kagaba joogsanayno meelna ma fiidinayno dadnimadkiina markaad la soo baxdaana sii sacbinayno oo qatidii noo soo qabiilaanan u fiirinay waa nacnay dembigaan soo taabanay waa kuwada weynay maba fiirinay waxaan rabnaa annaga nin dadka aan ku jirno nin naga soo saaraan waana bilowdeed horo socda markaasaa socda kaal ra'iisul wasaare hadda kahor waa ku jeclay waana ku jecelnahay wixii aad bilowday adiga iyo waxaa kula jiray madaxweynaha waxaan idinka codsanay dadkii hore waxa baabi'iyey oo madaxdii hore ay taariikh la weyday waa qabiil yarow dooda gashay intaan oo dhan idinkooda Soomaalida kooban xataa Soomaalida qabiil iyo qabada aan gashanay Soomaalida hogaamiye oo shaqada hogaamiye oo in aad noo soo dirtay dowladda ugu horreysa oo noo soo dirtay qunsul in aad tahay dowladdaadu ay tahay qunsulkaasina hadda halkan inuu joogaa waa bees aragteen waxaan jecelnahay in
inaad inoo soo dirto safiir wadani ah iyo diblomaasiyiin kale oo dowladda Norway iyo jaaliyadana u dhaxeeya dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Norwayna u dhaxeeya taasi waa muhiim waxa kale ay booqashadaadu muhiim noogu tahay waxa tahay aqoonyahanada ugu sarreeya waddanka maanta uu wax soo baray qarankii Soomaaliyeed isagoo nation sharaf leh ah maxaa la yidhahdaa state shaqaynayo effective ahna leh dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo Prime Minister Cabdiweli ambassador Nuur Cadde aan salaamayna Soomaalidu waxay tiraahdaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa أنا هاي ما هذله وحكومة ما أنا هاي ما هذله محا هاي من سوالف ترى لكن مرة بينا كلنا لما كل مدة مهمة أو مدة إنك تريها رواينا موجية وعموما أطلق يا دولة النرويج أوروبي الدولة السيئة دي الآن أرمى صومالي وها الله ما أطلق كذب واحد مدة الصومالية ما أنت إفتين مهمة إنه بلادنا شركة لندن وشركة آدي مهمة مدحة الصومالية دي هالكا نوغو تمد مانتنا آديات بالمهم نوغويين معايا لي ومدى الصومالية هدي دانتيدو أياكو أي قرن وايا نموارن صومالي واحد تلادا بغلو فريسك كنتم يلا بدو لدود أيا نوتر اللي سي معايا لي واوارن لي ayaa waxa maxallisanaa waxa ugu yareey bilaadan uu xashiisho ku heshiyo oo ah inaanu dalkeena kaliya ku heshiino qalad iyo samaanba waxaan mar labaad xasuusinayaa in ummadda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ay haystaan fursad qaali ah oo ay ku midayn karaan ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay kulankan koob iyo 20 qodob oo muhiim ah ayaa ka soo baxay qodob aniga aad ii farxad geliyay oo ah in meelaha la nigtigareeyay ama goobaha la nigtigareeyay ee ra'iisul wasaare Cameron iyo Hillary Clinton afkay ku dhufteen ee laga qabsado al-shabaab laga kiciyo in la dejiyo shaqaabuur loo sameeyo si kooxaha horumar la dagaalanka ee al-shabaab dalka looga suuliyo halka ummadda Soomaaliyeed waa federaal ummadda Soomaaliyeed waa federaal kulankan اسطنبول كدعي دونا waxaan ku boorinaynaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ayagoo midaysan oo kala socon inay isugu yimaadaan اسطنبول oo ay ka shaqeeyaan sidii ummadda Soomaaliyeed horumarkeedii iyo ay gobonnimadeedu u hanan lahayd bulshooyinka Soomaaliyeed waxa weeye waan u yilowna dalkeenii qurbo waa ka daalay وأنا نسويدنا محل قرن كأنه قرن كذا ما هي نسويدنا قرن كمحل قرن كذا والسؤال عيمة وربما هنا في فرعون الله لماذا هذا دولة الصومالية والعكسية حالات كريتيكالة إن أنا أقرأنه إن أنا نجس معمولنا وكلا ضمنه أما إن أنا أقرأنه إن أنا معموله أنا وحن دورنا ummadda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinteedii maanta hor fadhiyana aan ku buurinayna ku adkeynayna in mas'uuliyiintu ay doortaan inay dadka maamulaan shacabkuna ay noqdaan shacab mas'uuliyiintuna ay noqdaan mas'uuliyiin Soomaaliya waa dal awood leh waa dal awood soo lahaan jiray waa dal sharaf soo lahaan jiray waa dal 12 sano ka hor ummadeedu ay isku bahdilaan jireen caalamka haddii annagu aanan mas'uuliyiinta Soomaali garab siinin oo sida ragga halkaa fadhiya ee dalka greedka ee khayraad dhinac walba u dhammaystiran yahay aanan garab siinin oo dalkeena hagaagaya waxaan mar labaad ku gabagabeynaya hadalkeedii ra'iisul wasaare Cabdiweli halkan ummadda Soomaaliyeed oo soo ku dhaqan waxaa looga bartay inay si quman madaxda u soo dhaweeyaan ummadda halkan fadhida arkaysid وأمد كلية إسكندرية كا أيوة حتى سياسية ممكن الدول اسكو رأيها أو اللي استغلوا بدي سوداء أنا واحد من قرايب اللي جدكوا سياسات اللي كل الدول أنا
halkan waxaan kusoo dhaweynay farmaajo muddo 2,000 tiro 2,000 kor dhaafaysa oo Soomaaliya soo dhaweysay adiguna tiimkii farmaajo aad rag kula fadhiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad Norway la joogtid kulligiin dhammaantiin waxaan rajaynayaa in aad dadaal muujisaan xilli dhow gudaheedna taariikhii baad ka tegi doontaa raggiina meesha fadhiya maanta mas-uuliyiin Soomaaliyeed baad taariikh baad ladinka qoraya in taariikhda buugga Soomaaliya ladinku daro qaybtii Soomaaliya ku keentay opportunity-gaas ayaa gacanteena ku jira idinka ayay ku xiran tahay inaad ama sii daysaan ama aad horumar samaysaan waxaan idinku soo dhaweyn doonaa mar dhow Norway idinkoo xilkiinii soo gutay oo waxaan idinku mahadcelin doonaa sidaan farmaajihii raggii lamidka ugu mahadcelin haddii aad hawshiinii sidii loo baahnaa u qabsataan waad mahadsantihiin عبد الله كريستالو ها وكعيه محمد ما راح شرفت له مروين مدنيال دمانتين وسلامتين سلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهين بالي سوحي ساري إنه كوكو بيجيو أنت عندنا أي لبك المسكوت السنية رئيس الوزراء إذا حد الشرعي هذه قاعدة ستين وليس يقولوا ولا شيء أيام يبصر العلنين وحال لأن يدك الشرعي اللي جيستين إن الدريمان شعورتي عن دريمين واجي عبد بلا فوق الدم وقاطع وحال يبصر العلنين إن أتحي وفدي بيقول لي رئيس الوزراء يقول لي الدولة أنا بوقشة الدولة اللي ما درت فينا ها أوكي أنا بقدر أنا جناه ما خلاص في ريو سمعت عندك أنا كهيسنا عبد بلا وهو كل استقبال كدومك تاريخ الصومالية أيوما كدوم كويس رئيس الوزراء مركو درك ويمد هؤلاء وكهذي وحكمتها إنه يري Soomaaliya talab bay ka tahay dagaalka muddada dheer soo socday shacabka Soomaaliya diyaar bay u yihiin inay nabad ay gaaraan taa waxay noo keenaysaa markaa image-keeda kor u soo qaadaysaa maanta waxaan nahnay dad jinsiyad leh manihin minority manihin dad dal higsanayaan nahnay waxaanu joognaa dadka adduunka ugu wanaagsan waxbarashooyinkiisa dugsiga sare dugsiga ee jaamacadaha way fiiyihiin waa inaynu ka faa'iidaysanaa haddaanu dalkeena aan wax tarayno baashi adoo raali awalaa 1 minute kaydisi adigu al-shabaab baa caawa isku maamaagtay nasiibka weya masr cabdiweli habeenka dhawad markaan isla joogna waxaan ku weydiiyey anigoo arrimaha dumarka aad baan concern ugu ahay waxaan ku weydiiyey sidee maadaama baarlamaankan cusub la dhisi doono sidee 30% loola ogolaaday 40 lama dhihin 50 haddii la soo jiro ma markii wada soo xilhaayeen 30% loola ogolaaday sidee aan ku heli karnaa waxaa tiri waxaan raacsanahay oo aan aaminsanahay haddii aan gaarayno nolol waarta waa in dumarka siyaasadda la soo geliyaa u raacsanahay taa soddonkeennana waa soo buuxinaynaa laakiin marka taariikhda Soomaaliya dib aan u fiirno 20 sano u dambeysay dib aan u fiirno iyo howlka ragga uu ka ciyaaray siyaasadda intay xabadii ka daanay bay kuraas isla dhacayaan sidee markaa caynkaas dumarka ay u ogolaan karaan inay mas-uulshadooda soo galaan aase xildhibaan ahaan waxaa i saaran horta taayintaan gelin run ahaantii maa inaan walba ragga eedayno dumarka laftigiisa waa inay kaalintooda ka soo baxaan Liberia Syria dictator ayaa dumarka ka saaray dalkoodii wiilkii iga horey halkan wuxuu yiri waxaan doonayaa Nobel Prize in rag u yimaado anigu Nobel Prize waxaan u doonayaa gabar Soomaaliyeed run ahaantii hada anigu ma aqaan ficil baan aqaanaa waxa aan ka doonayaa idinkoo dhan halkan fadhida inta TV iga daawanaysa gabadha Soomaaliyeed doonaysa inay siyaasad soo gasho please soo gal ku soo mitid
مسؤوليتي سان waxay tahay haddii doonaysid aqoon kororsi siyaasadeed haba ka soo baxaya laakiin booska ayaan laga qaadin waxaa u gudbayaa marka arrintii laga soo xil saaray inaan ku siiyo erayo fansi ama soo qorto marka waan akhriyaa anigoo matalaya Somali Community Norway ayaa waxaa la ii soo xil saaray inaan ku guddoonsiiyo shahaadadan waad ku mutaysatay inaad ka shaqaynayso waad ku howlan tahay horumarka nabadda rajo soo celinta shacabka Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta dumarka Soomaaliyeed waxaan runtii jecelahay inaan hadalkayga si toosa fadhiista walaalayaal dhammaantiin waa fadhiisan doontaan haddii ilaahay idmo inaan si toosa sida brotokoolka hadalkayga u gudbiyo waxaan anigu gudbin doonaa haddii ilaahay idmo nuur xasan xuseen nuur cabde oo ambasador ah brotokoolku siduu yahayna wuxuu gudbin doonaa haddii ilaahay idmo cabdiwahaab ra-iisul wasaaraha koowaad cabdiwahaab xuseen khaliif ayuu ku soo dhoweyn doonaa islamarkaana cabdiwahaab ayaa ku soo dhoweyn doonaa haddii ilaahay idmo ra-iisul wasaaraha nuur cabde adigana runtii shahaadan iyo mid ka badanba waxaan ku haynaa hawl badan baad qabatay waxaad soo furfurtay hawlo badan oo dhagxaan ahaa waxaan malayna inaad adigu meeshan usoo gabadh xaadhay si ay dimuqraadiyad u timaado aad baa umaasan tahay waxaana nidaamadu siima garanaysaa ubax baa lagu talagalay laakiin waxoogaa elecjibu ku yahay baashi aad iyo aad umahadsan tahay laaliga noqda haddii yara hadalkii ugu xiran yahay oo aan gebsanahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay runtii caawa yani kulankan qiimaha iyo qaayaha leh oo aad yani ugu tala gasheen wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya professor cabdiweli maxamed cali anigu hadal kale igama furno anigoo aad iyo aad idin salaamaya idinkugu mahadinaya runtii ku faraxsan barnaamijkan sidaa u daadiiseen iyo yani qiirada runtii wadaninimo oo aad nagu abuurteen intaan idinla joognay waxaan waa idinkaga mahad celinayaa waxaan ku soo dhaweynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka cabdiwahaab si uu maaragta isna salaamiga ugu soo gudbiyo isla markaana uu soo dhaweeyo ra-iisul wasaare professor cabdiweli maxamed cali waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الوزراء حكومة كل ذلك مدير بروفيسور عبدولي محمد علي قاس سفيرك نور عبد هو مدوغ اليوروب استمر كان سفيرك النوفردية ودك الطليانية سرادينتا علماء هويوينكا odayaasha dhalinyarada bahda saxaafadda iyo fanaaniinta waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa farxad weynaya runtii oon isleeyahay laba farxadood bay noqonayaan inaan arko wajiyo aad u qurux badan oo Norway ah islamarkaana ka sii ah Scandinavian-ka oo naftigeedu aan ahay ninka yimid waddanka Sweden runtii aad baan ugu faraxsanahay inuu wasaare in badan ayaa waxaan aragnay dad badan oo runtii leh reer UK iyo North America oo ka imaatay ayay aan dadku ugu firfircoonaa ay ka qayb qaatay mideynta Soomaaliyeed balse caawa waxaa maxaadad ka tahay in reer Scandinavian ay runtii aad iyo aad u soo baxeen yihiin kuwa hadal badan igama furna waxay la tahay wasaarihii baad sugayseen warbixinayna siinaya aniga naftaydu waxaan jiray xoogaa walbahaar waxa iga hayay Sweden iyo waxaan soo maray Denmark
intuu ra-iisul wasaaraha imaanin waxaan islaa haddaadan osla imaanin waxaa laga yaabaa in yidhahdo lama dhanna haddaan geeyo fariin aan inaan sadiraya marka hadda ay tahay reer wasaare waxaan kuu soo dhaweynayaa mikrofoonka si aad hadalladii qiimaha lahaa dhexgalka ahaa aad u tiraahdo roo oslay reer nurweya حسين وعن كسر ويليا حسين نوريو وفنان سوماليات ورنتي داير آدم لأمانه وحنا هستي كتشد على وها وسكتي سنادي وكم من نحن استحريت يا إنما تسين الرئيس وزارة حسين
waxaan ku bishaaraynayaa waana tashanay cadowgina waa ka tashanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka ganacsiga iyo warshadaha cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ambasadorkeena danjiraheena EU iyo Italy nuur xasan xuseen ahna prime ministerkeenii hore xildhibaan yaasiin cabdiseen yariisow cabdiraxmaan camar cusmaan yariisow ambasadani waddanka Norway martidan u nahay odayaasha dumarka dhalinyarada waxgaradka bahda saxaafadda dadweynaha reer Norway reer Oslo maanta aad farxadan iyo xafladan qiimaha badan ugu soo dhaweeyey waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mahad weyn u naqayaa guddigii qabanqaabada xafladan qiimaha leh noo sameeyey mahad gaar ayagana usii naqayaa oo aada ugu mahadsan yihiin soo dhaweynta iyo soomaalinimada iyo wanaagga ay noo muujiyaan aniga iyo wafdigaygaba idinkana kasoo qaybgalka aad nagu soo sharafteen maanta keenaas dhegaysano iswareysano ismaqallo aada baan idinkaga mahadnaqaya waxaan sidoo kale mahadnaqayaa waxaan kaloo aada u mahadnaqayaa dowladda Norway oo runtii ah dowlad Soomaaliyana aada u taageerta aada noola shaqaysa hawl badan oo yacni qayb kasta ha noqoto geedi socodka nabadda ha noqoto nabadgelyada ha noqoto dhismaha haykalka dowladnimo ee Soomaaliya runtii gacan naga siisa ahna wadamada kaliya ee qura ee aan dan gaar iyagoon ka lahayn Soomaaliya runtii aada noo taageera soo dhaweyntoodii halkaan noo soo dhaweeyeen aada aada uga mahadnaqaya inay maanta idinkana hoy iyo waxbarasho iyo nolol aad waddankoodii ka samaysanaysaan ood joogtaan oo sharaf iyo karaamo u nooshihiin iyagana aada baan uga mahadnaqaya intii hadashay intii shiribtay intii buraanburtay intii la soo dhaweysay iyo xafladii iyo giftigii qiimaha badnaaday siiseenna runtii aada baan kaga mahadnaqayaa mar dhow walaalkay baa wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi liido waa inaan ku dabaalinaa liido waa ku dabaalinay waana aragtay baan maleenay aan idila kaftanaya anaa waxaan oran jiray war cabdiwaliyow Soomaaliya seed ugu laabanaysaa wiil yar baan leeyahay oo hadda 8 sano jira marka 8 sano wiilka jira ilaa uu jaamacad ka dhigto Soomaaliya ma joogaysa jaamacad ka dhameeyo ilaa waa inaad la joogtid markuu dhameeyana hadda adiga dhakhtarkaaga ka agtay kari marka see Soomaaliya ugu laabanaysaa bal waddankaaga iska iimaanso iska joog waxaan idiin sheegayaa wiilkuna Soomaaliya waxbarasho fiican buu ka helayaa dhakhtar fiicanna Soomaaliya hadda waa jooga runtii Soomaaliya waxay gashay marxalad kala guura waan ka guuray colaad waan ka guuray nabadgelyo darro waan ka guuray dhibaato iyo colaad iyo isdil waan ka guuray 20 sano way nagu filaatay dadka Soomaaliya waa bislaadeen waa la shukuray dhibtii waa ka badatay waxay yiraahdeen enough markaana waxaan rabnaa intiina qurbaha joogtana in aad dadkii Soomaaliya jooga waa bislaadeen meel bay isu raaceen waana guulaysanayaan inaad idina intoo kale aad aamintaan dhulkii saas aad uga warqabtaan ayaan ka rajaynaya
waxaan rabaa wixii inaan ka idhaahdo isbeddelka Soomaaliya ka dhacay muddada yartii aan joognay iyo meesha hadda aan u soconno waxaan rabaa inaan wax yar wixii yar ka siiyo oo ku bilaabo runtii dib aan soo marnay adag baan soo martay waqtigii xilligii samarka ama xagaaga oo ahayd inaan Soomaaliya soo martay abaartii ugu xumay 60 sano la soo dhaafay abaartaasi waxaan isleeyahay waa abaar aan isleeyahay waxa weeye gacanteena ayaan ku falkinay abaartaas ilaaha baa keenay laakiin aan gacanteena ku falkinay oo soo sameynay waxaan ku sameynay dabeecadii iyo nature-kii iyo dhirteennii ayaan gubnoo shiranay Soomaaliya oo la socotaan oo ah waddan saxara ah ayaa haddana waxaan nahay waddan saxara oo haddana dhuxul dhoofiya marka inaan marka abaari timaado waa in yani waa dabcan waa wax nature way second nature marka dhuxushaadii gedaha gishidado yani intii anagu aan cunaynay oo isticmaalanay mooye inaanu dhoofino waliba waxaan aaminsanahay runtii oo dhabtu waxaa weeye dhuxusha anagu Soomaaliya gudaheeda aan ku shidano oo aan isticmaalo xataa bi'adeena ma qaadi karto midaan shida iska daayay arrintaas marka dhib weyn binagu haysay dadaal weyn baanu ka galnay xukuumadda September sanadkii la soo dhaafay waxaan bilownay marka inaanu dacwoono adduunka u dacwoono kana dacwoono kuwa dhuxusha shidaya iyo kuwa soo dhoofsanaya loo dhoofinayo oo ah wadamada khaliijka waxaan ku bishaaraynayaa bishii February 22-keedii United Nations Security Council resolution in la soo saaray lagu mamnuucayo dhuxusha Soomaaliya laga soo dhoofinayo haddii aanan taa samayna waxaan idiin sheegayaa waqti aan dheerayn dadka iyo bii'aduba inay isla dhiman lahaayeen oo isla dhimanayeen marka gargaarkaas dhibaatadaasi markay dhacday xukuumadda dowladdu runtii dadaal weyn bay soo dhisay waxaanu dabcan inaanu hay-adaha caalamiga oo UN ka mid tahay inaanu arrintaas la kaashano marka horeysa oo aan isugu yeeray waan xasuustaayo waxay yiraahdeen waxaan sameynaynaa assessment waxaanu diraynaa Nairobi diraynaa kabacdi Nairobi New York bay la hadlaysaa New York baa soo jawaabaysa يعني كلام فاضي كبعد أيام حد أنت أصلا ذكي وادي مانيا هذا جون سنة سنة في قفك حمر شوقي بتشوقي لبت ركعة هيستي معروشة لبعتها ذكي سولو جاي ذكي المهم إذا تم قصة قاضي إذا قلت تم قصة كل انتهي شد قصة انتهي قال يجو أو وضع وميدة حتى أن يعني وجد الإنسان حتى أن يدرك السبب لبعتهم بهاي وقتهم على صومري أنا أقول لك حكومة عامة حاليا ما في رسالة كرنو أرنت هذا دلال بان مفروض تسميني أنا أقول لك حتى بمنهج سنة وسمر كبدحير هاي أيام الشام بقول لكم ودورك أهري أنا بذكر حري أنا وسميني وعلى صعد أمرك حانس من حريين كيف رجوا يبدأ وبهري دولة أيام سميسين كبعد أن أنا يبدأ حوينها هي دولتها وحانو وقيلان درسنا أدونك هنا سوى العكسين أي لوكس الجواب إلى هناك هذا يعني كان تجربة كور أيام مرتبي نور بلوكور ممرية حقيقي ذكاء ما أنت إيماني ما أنت ما كبرته فرق يقول حي وروح كم لغة يعني نورش كم لغة مركي لا نقول لي ما يرفع عن أيام أرنتاسي أي نمر وحاسة كون أحسن من شيء challenge كستا هي مشكلة كستا ووطن صومرتا مرة بحالة سعودة فرصة opportunity على سعودة opportunity على سعودة توحي هالمكان مقايلنا dadkii loo soo jawaabay dadkii ugu horeeyay waxay ahaayeen waddanka reer Turki كون waxaa loo yimid madaxweynaha dowladda Djibouti Ismaaciil Omar Geele loo yimid kabacdi waxaa loo yimid ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga Erdogan wuxuu yimid isagoo wata caruurtiisii iyo naagtiisii iyo maantana waxay ka hayaan Soomaaliya hawl aad u wanaagsan oo aan isleeyahay Soomaaliya way bedelaysaa
يعني forever Soomaaliya aad u bedelmaysa Turkiga waa bedelay hadda kor waxaan ku sheegay walaalay hal mid kamid wuxuu yiri dadkii waddanka soo baray baad kamid ahay waa run anigu weligay waxbarasho Soomaaliya hal shil kuma bixin أنا عاصلت عادة ما كان لقينا Soomaaliya iska dhaaf chief iyo cunno iyo raashin حتى بوقت ما لا بقول أفرت شيء ما بقى سير السنجر وهو رأي لا بقول أفرت شيء ما نسمع أنت عسكرية معنا مركز محبشة أمريكا وهذه هنا وضن كي سكولش وسيء أيام الصبح لكن أنا عايز أن يقصد السيو مركز أمريكا هذه مريكا كل بحنجر الله وحبرش ولا سكولش من ده حلو رنجر فول براي من ده حلو رنجر أفكار كيلو عشان أرضي على سنجري وضع كارت مريكا كارت ولا على كتير Soomaaliya wuxuu siin jiray 5 sanadkii waqtoon arday Turkey 6 bilood ka yar ayay waxa qaadeen waxbarasho qaadeen 2,000 oo arday oo Soomaaliya iyaga weeye kuwa bedeli doona Soomaaliya kuwaas markay soo laabtaan oo wax soo bartaan iyagoo waliba qolaad iyo dhibaato iyo rafaad Soomaaliya dhexdiisa ku soo bartay markay inta waxbarasho helaan waddanka ku soo laabtaan ayaga weeye kuwa Soomaaliyana mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda bedeli doona hadii ay yiraahdo waxaan kaloo rabaa inaan kaga warramo xagga nabadgelyada waddankii waxaa ka dhacay isbedel aad u tiro badan maada ka gaarto askarta iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo walaalaheena Amisom ee iyana noo yimid si ay noo taageeraan ciidamada isma oran 6 bilood ka hor xamar magacaasamada Soomaaliya boqolkiiba boqol maanta waxay noqonaysaa xor oo gacanta dawladda ay galaysaa laakiin way dhacday waxaana ku dhacday Ilaahay fadligiisa iyo sacrifice ay suubiyeen ciidamadeena iyo ku shaqeeya waliba mushaharlaan marka qaarkood way qaataan mushahar laakiin askarigii wuxuu qaataa $100 ku shaqeeya $100 ayuu ku shaqeeya oo marna laga yaabo inuu helo marna uu waayo marka isbedel weyn baa ka socda waddankii waa la xoreynayaa waddankii Soomaaliya waa la socotaan gobolada qaarkoodna oo reebi waa la xoreeyay sida Beledweyne waana hadda ka hor ku soo diray 1 December ka baxday gacanta shabaab iyo cadawga haystay Baydhabo waa xorowday marko iyo Kismaayo iyo inta kale ee cadawga joogana insha Allah waqti aan dheeray waa idin sheegayaa waa dhab weeye way xoroobay waqti dhow aan dheeray odayaasha midkood baa wuxuu yiri ashabaabna ha loo yeero waxaan maalay in badan cadawga iga dhageysateen ashabaab waa run meel kale kama imaan annaga laga yimaado marka waa run oo ku fashilanay in wixii xukuumad ahaan ka tiirjay ahaantii waxyaalaha lagu fashilan waxaa ka mid ah in wixii aad gabadha ashadaas wixii lagu shubay inaan aanu helin awoodaan kaga shubno sababtoo ah waa isticmaal karin aqoonteena markay yani diintii dhabta ahayd tii runta ahayd narrative-kii runta ahaa annaga haysanay saas oo tahay ilmihiina nalka guulaystay in lala wareego oo annagana lagu soo diro oo hooyooyinkoodii walaalahooda ay soo qarxiyaan loo soo tababaro oo loo soo sameeyo laakiin hadda dadku way arkeen runtu way arkeen shabaab wuxuu yahay iyo sababtoo adee ajanda Soomaaliyeed ma wadaan haddana waxay yidhahdeen bashaab maahine waxaa la yidhahdaa alqaacida ee Soomaaliya alqaacida Soomaaliya marka hadda qofaan ajanda Soomaaliyeed wadinin seebaad ajanda Soomaaliya uga hadli kartaa annagu xukuumad ahaan waan aaminsanahay inaba hal ekaatee nabad inaad ku gaari karno qolaan haddaan nabad colaad ku gaari karno 20 sano ayaan colaad burinaynay ayaan nabad gaari lahay marka waan aaminsanahay in aanan ku gaarayn nabad inaan colaad ku gaarno caqli ma marka diyaar baan u nahay qofkii ajanda Soomaaliyeed wata oo nabad Soomaaliyeed raba oo raba in nala fariisto nala hadlo oo daayaba iyo dibad nala galo hadda diyaar baan u nahay horena waan u yiri haddana waan ku dhalinayaa diiwaan laakiin qof aan ajanda Soomaaliyeed wadan way dib ugu noqonaysaa inaanu la hadalno laakiin dhanna annagoo gacanteeda ku dagaalamayno oo rabno waddankay inaan la gumaysano
oo uusan cadow gacanta u gelin ayaa dhan kale nabad anagu aan ku baaqaynaa diyaar baan u nahay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo bishii September 4 ilaa 6 xamar waxaa ka dhacay shir aan maqasheen oo la yiraahdo shirkii wada tashiga Soomaaliyeed wuxuu ahaa shir ku horeeyay ee Soomaaliya isugu timaado wadanka gudihiisa ka dhaca 3 bari gudahoodna aan saacadooda waxay ahayd 2 bari gudahoodna aan ku gaaro heshiis dhab ah oo Soomaaliya tiraahdo waan heshiinay waxaan samaysanaynaa wadadii aan kaga bixi lahayn ku meel gaarnimada kuna gaari lahayn dowladnimo taab ah waxaa la yiraahdaa wadadaasi roadmap Soomaaliya waa weynay laakiin la barayo soo baratay roadmap ka cad marka roadmap weeye marka roadmapkaasi waxaa noogu qoraa waxyaabo tiro badan 4 waxyaabood ka koobnaa ta koowaad waxaa weeye nabadgelyo security in la soo celiyo wadankii la xoreeyo nabadna lagu soo celiyo taasna waa la socotaa oo ku guulaysanay caasimadda intaan sheegay waa xor inta kale way xoroobeysaa hadii la yiraahdo laakiin waxaa taa ka muhiimsan xoreyntu in magaalo laga saaro shabaab way sahlan tahay laakiin waxaa ka dhib badan in la xasiliyo in dadka la nabadeeyo in maamul loo sameeyo dhibtu taasoo loo baahay marka la sameeyo iyana waa socotaa oo insha allah wadanka waa la nabadeynayaa waxaa jira qorshe la yiraahdo NSSP National Security Stabilization Plan oo ah qorshaha xasilinta dalka ka bilaabanaya in la dhiso peace committees la abuuro meelaha la xoreeyo ka bacdi dadka loo sameeyo reconciliation dib u heshiisiin ka bacdina maamul loo kala loo dhiso ka bacdina maamulkii dheeraa weynaa ee gobolka markaasi in loo sameeyo qodobka kale oo anagu nagu jiray ajandaha oo roadmapka wuxuu ahaa waxaa la yiraahdo political outreach and reconciliation in dowladda dhexe iyo goboladu inay isgaaraan wala socotaan wanaga muddo dowlad goboleedyadu iyo xukuumadda dhexe aad isuma ficneen wala socotaan oo bishii April sanadka la soo dhaafay waa tii shirka ay ku qabsadeen xukuumaddii ay diiday ka bacdi waxaa yani runtii aad bay u kala fogaayeen dowladda dhexe iyo goboladu marka anu markaa meesha runtii go-aankan gaaray wuxuu ahaa in haddii loo Soomaali inay meel wada socoto sababtu waxaa weeye haddaan midnimo la helin haddaan unity la helin haddaan Soomaalinimo la helin waxaa in horyaala idin sheegaya in badan oo waxaa jirta Soomaali maaha kaliya in kaloo badan waxaa jirta aan Soomaali ahayn oo runtii 20 sano la soo dhaafay ka shaqeynayay Soomaali misan heshiin u kala warrama been u kala sheega Nairobi meel kala fadhiya ayaa buuxay marka haddaan rabno hawlaha adagoo la horyaala oo roadmap ku qoran in aanu fulino waa lagama maarmaan in dadkii iyo dowladdii iyo gobolladii ay meel wada socdaan taas ayaan isugu shughlinay waa la socotaan marka madaxweyne Sheekh Shariif iyo anuguba markii saddexaad oo Puntland tagayna weeye anigu galmudug waan tagay baladweyne waan tagnay meel kasta oo Soomaaliyeed oo nabadana dowladda inay gaarto waxaan sameynaa dadaalada steering committees ka kooban wasiiro iyo xildhibaano oo ay tahay in ay tagaan gobol kasta iyo degmo kasta oo xor ah oo Soomaaliyeed in dowladnimada la gaarsiiyo xukuumaddu tagto xildhibaanadu tagaan in dadka ka yimaadaan meesha dadka matalaana in lagu laabo dalkii oo dowladdii dhexe iyo gobolada isku xidhan taasna runtii waxaan ka gaarnay guul la taaban karo taasaa keentay marka xataa 2 shir oo isku xiga in lagu qabto Puntland Garowe iyo Garowe 2 oo runtii laga soo saaray go'aamo masiiriya oo dhaxalgal ah laga soo saaray maxaa ka mid ah waxyaabaha marka meeshaan u socono markaan eegno roadmap qodobka saddexaad ee roadmap ku jiray wuxuu ahaa in wadanka loo sameeyo dastuur baarlamaankana reform lagu sameeyo dastuur marka in la sameeyo wadanka loo sameeyo
wala socotaan muddo waxaan ku shaqeynaya charter wax la yiraahdo marka waxyaabihii kasoo baxay shirarkii aan sameynay waxaa ka mid ah in dastuurka la dhammaystiro dastuurkaasna marka hore waxaa gacanta ku hayay IFCC oo shaqo fiican ka qabtay welina ku haya waxaa kaloo magacaabay guddi la yiraahdo Court of Experts oo Soomaali waxgarada aqoon-yahanada looyaraha oo iyana dhammaystira si ay noo seeyaan final draftiga waxa weeye in la dhammaystiro oo dastuur taama aan haysano bisha April 20-keeda 2012 sidoo kale go'aamada gaar waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka la yareeyo oo baarlamaankii 550 ahaa laga soo reebo 225 dastuurka marka si loo ansixinayo dastuurka waxaanu gaaray maadaama dastuur kasta in la ansixiyahay wuxuu u baahan yahay afti referendum buu baahan soo dastuur dhab oo noqdo laakiin maadaama Soomaaliya maanta ay dib weyn ka jirto waxaan go'aansanay in aan ugu afti aan ugu ansixin karin laakiin aan ku ansixino waxa la yiraahdo consumer assembly waxa weeye in kun qof oo Soomaali ah oo bulshada rayidka ah oo cid kasta ah dumarka dhalinyarada aqoon-yahanka professionalska dadka ah looyarada macallimiinta gurba joogta ganacsatada oday dhaqameedka yani dadka culamada yani every segment of the society dadka inta la isu keeno in ay markaa iyagu inta ka doodaan ay ansixiyaan waxaan gaan ku gaaray in kunkaas qof 30% ay halaan dumar waadii sheegayay sidoo kale baarlamaanka waxaan ku gaarnay 225 baarlamaanka ku jirtay 67 kamid 68 kamidii oo 30% iyana inay halaan dumar micnaheedu waxa weeye 30 micnaheedu waxa weeye 30 way dhacday hadda ka hor in la yiraahdo dumarka ha loo sameeyo koota wala socotaan indhigaati waxaa la yiri 2% hala siiyo 5% ma helin marka anaga waxaan naga go'an 30 haddii soo 5% heli karin 30% micnaheedu tahay 30 waxyaabaha kale oo aan ku go'aansanay shirarkii wasiiriga waxaa ka mid ah in la qaato habka federalism waxaa marka sharaxaadana ka bixiyo maxaa federalism ka faa'iido ku jira horta si faa'iido ku jirta وأنا لو أفهم فederalism يعني سؤال يعني regionalism كواليس إنه سمعني سؤال كلاميزم قبيل قبل سقوط الكوستي federalism كو مركي هذا concept أهم هنا فهمنا واحد تاني وحوي الدولة ده باور كذا وإلا قيبية سولو قيبية سيدا عودك كل شيء أو كذا إن باور كسيستم الله قيبية حالي هذا horizontal separation of powers يعني حوي إنه تشيلو executive branch كيو الدولة دي legislative كيو برلمان كيو إيو judiciary كيو محكمة دي أين مركز إسبانس جريان أو check and balance كسمية سي أنغولا نغولا كذا أي سنة واحد قدبين أي سنة ود جاروه لكن قدام هذا قاركو وحي لهذين تحصلوا ما في الله ساس براد الباور كدولة دنا سي vertical أو إنه قيبية وجدت الدولة دي سنة الدولة دي دحى هي الدولة دي خاصة وجدنا وحويه إن لقى عرضه إن حكم الدولة جاهي وسجعت أجدل هل قف هل شخصي هل جروب هل مجاله هل قبيل إيوه هل أنت تطور سببته حواليه دولة ماذا وحالي هذا government is the only entity that has monopoly power on violence يعني الدولة ماذا دولته وعدة كريه عبو بك عبك لكن ما دام الدولة حوق لهذا عبو بك عبك تهي وحالي ربا حوق جيدا سل الحكمية حالي ربا حوق جيدا إنه يسنقف كموادي كايسن كدري إنه يسنقو حيل مرحبا مركب waxaa important dowladnimo ma jirayso haddaan la yani la bartaan garayn oo aan la ilaalin sharafta iyo karaamada muwaadinka the sovereignty of the individual marka waxaa naga
go-an marka in sidoo kale waxaa la go-aansaday qaabka dowladnimo ee Soomaaliya ay qaadanayso waxaan go-aan ku gaarnay inaan qaadano qaabka parliamentary system يعني baarlamaanka dowladnimada ku dhisan baarlamaanka inaan u qaadano maxay tahay in dadku ay soo doortaan baarlamaanku uu soo doorto speakerkiisa iyo madaxweynaha ka bacdi madaxweynuhu ama magacaabo ra'iisul wasaare kalaan xukuumad qaab noocaas si markaasi dimuqraasiyaddu ay uga hirgasho Soomaaliya iyadana go-aankaas go-aan gaaray go-aanada la soo saaray ayaa ka mid tahay qodobka afraad muhiimka noo ah aanu jecelahay marxaladda kala guurka in wax laga qabto waxa weeye good governance dowladnimo wanaag Soomaaliya waxa burburay oo ugu weyn ma aha saraha ma aha sarta waa dhisi karaa hadda xamar haddaad aragtaan jidkii marka mukarrama markii aad marto aad la soo jiray meeshan waxa ku dhacay aan qowmiyadriya ku dhacay Hiroshima iyo Nagasaki oo kale saakina martaan baa ficnaan lahayd yani bil gudaheed ayaa saas wadanka ugu soo laabtay marka sabta waa la soo celin karaa waa la dhisi karaa waxaan dhisi karaa waxa weeye markii ay dumaan institutions haykalka dowladnimo markuu dumo way dhib badan tahay in dib loo dhiso Soomaaliyana way sii dhib badan tahay sababtoo ah intii dowladnimo taqaanay intii garanaysay in badan majority-geedii wadanka oo ka soo tageen inta halkan joogtaa ka mid marka waxaan u baahannahay good governance in dowladnimadii iyo haykalkii dowladnimo institutionskii in dib loo dhiso haddaan institution jirinna dowladnimo ma jirayso halbaa idiin sheegayaa ninka madaxda ahi inuu tago inuu dhinto in la badaahi micno badan ma suubiso haddaad leedahay foundations yani institutions oo dhab aad leedahay example haddaan siiyo wadanka talyaaniga laga soo bilaabo 1945 dagaalada adduunka imise dowladda soo martay idinla tahay ka badan 50 baa soo martay qaar baa 6 bilood jiray laakiin mar walbana dowladnimada talyaanigu shaki ma gelin dhaqaalaheeduna waa u socday wadankuna waa horumarayay maxaa dhacay consumer foundations level institutions solda ayaa wadanku u leeyahay marka haddii aan la helin institutionskaasna dowladnimo dhab ah lama gaarin waxaa ugu horeeya in la yidhaha inaan la dagaalano musuqmaasuqa corruption Soomaalida mar walba waxaa la bartay waxaa la yidhaahdaa waa wadanka ugu corruption badan adduunka anu ma aaminsanin sababto waxaa weeye haddee dayto ay hayaan oo ku saabsan corruption baana garan karin laakiin waxay tahayba inaan la dagaalna waa laga maarmaan waa la socotaan marka waxaanu sameynay waxaa la yidhahdaa anti-corruption commission sharci shuruucda la sameeyo legislations lagula dagaalayo musuqmaasuqa waxaan kaloo go-aan ku gaaray in la establish gareeyo waxaa la yidhaahdo financial accountability board mutual financial accountability board oo londonna waxyaabihii go-aamadii kasoo baxay ka mid ahaa sababtu maxay tahay aadii micneeya marka waxay tahay Soomaaliya sanad walba waxaa la yidhaahdaa waxaa ku baxda $1 bilyan baa la siiyaa deeq halkaas bilyan oo dollar waa la siiyaa iskuul lagama dhiso caafimaad lagama sameeyo wado lagama dhiso marka waxaan nidhi war $1 bilyan maxaa lagu sameeyaa adilaanan sanad baa ku baxdaa Soomaaliya sababto waxaan ognahay in 90% aysan soo dhaafin Nairobi marka adduunka waxaan nala cadayno war annagu shilimaanta naga soo gashay airportka dekada waa idin tusaynaa meesha ku baxdee waxaan idinka rabnaa idinkana $1 bilyan magaceena aad kusoo qaadataan inaad noo sheegtaan meesha ku baxday runtii taasna waa soo dhaweeyey oo go-aamadii ka soo baxay London ayay ka mid ahayd xisaabta dhaba inuu Soomaaliya ka dhacaweeyey 20 sano oo ah iska daba wareeg iyo lugooyo waana soo karta enough is enough Soomaaliya way soo jeedaa hadda markii shirarkii aan ku dhigaynay gudaha Soomaaliya shir kasta oo Soomaaliya gudaha aan ku dhignay oo Soomaaliya isugu timid oo markaan isu imaanin laga yaabo boosashada aad u kala duwan inaan joogno
ayaan haddana waxaan ogaanay mar haddaan Soomaali nahay isuna nimaadno in aanu go-aan gaari karno tashan karna marka waxaa laga yaabaa qaarkood ay leeyihiin Soomaalidu ilaa waxa waa gartaan anana waxaan ku leeyahay waxa waa garanaa waana garan jirnay marka shirkii London wala socotaan Soomaaliya loo qabtay runtii shir wanaagsan buu ahaa inkastoo propaganda badan laga fidiyay oo la Soomaaliya maxamiyad baa la gelinayaa war Soomaali miyaa oo maxamiyad la geliyay waxaa weeye Soomaaliya inaan maxkamad la gelinaynin idina waa ogeydeen anana waan ognahay laakiin waxaa iska ahayd propaganda rabiis iska ahayd laakiin runtii waddanka Ingiriisku 20 sano iyo dhowr ka bacdi inuu Soomaaliya yiraahdo wax laga qabto oo intaasoo konton hay-adood iyo mas'uul inta isugu yeero Soomaaliya laga hadlo si dhab amiiska loo soo saaro dhibta jirtana laga hadlo madaxda Soomaaliyeed ayagoo midana ay yimaadaan runtaana gulbayna waxay waxaa gudaha waxay sidoo kale in walaalaha Somaliland ay noo yimaadeen waxaan rabaa marka in aan hadalkayga ugu soo gabagabeeyo idinka innaga diaspora waqtigeeda ka mid baan ahay maxaa waddankii idinka sugaya horta aad baad ugu mahadsan tihiin waddanku diasporada ayuu ku noolaa muddo remittance-ka waxaa la yidhaahdo xawaalada lacagta Soomaaliya loo diro 1/3 saddex meelood hal meel GDP-ga gross domestic product wax soo saarka dalkeena sanadkii saddex meelood oo hal meelood waa lacagta aad dirtaan weyn marka runtii hawl fiican baad ka qabateen inaad waddankii aad u shaqaynaysaan wax ku celinaysaan noolanaysaan laakiin hadda marxalad kalaan gelaynaa marxaladii ahayd nafta lagu celiyo reeraha iyo faamiliga inaan ka gudubnaa rabaa waxaan rabaa marxalad reerku usan adig kuu baaha inaan samayno marxalada inaanu reerka u abuurno shaqo wiilka shaqo u abuurno hooyada shaqo loo abuuro odayguna shaqo loo abuuro taas inaan gala weeye waxaan idiin sheegayaa adduunka waxa difference sameeya ma aha waddanku inta uu khayraad leeyahay ma aha dadkiisu dutra la egyahay waxa difference sameeya waxa weeye dadkiisa aqoontiisa iyo garashadiisa anu dhaqaalan bartay waxaan idiin sheegayaa wadamada adduunka ugu taajirsan oo ugu lacagta badan oo ugu dhaqaalaha badan waa wadamada ugu fakhrisan marka la eego dhanka khayraadka example haddaan idin siiyo waddanka la yihahdo Hong Kong soo ma taqaanaa Hong Kong maxay leedahay Singapore maxay leedahay Taiwan maxay leedahay South Korea maxay leedahay waxba Hong Kong oo 7 milyan iyo bardadii ku nool yihiin sanadkii la soo dhaafay wax soo saarkooda wuxuu ahaa 300 bilyan oo dollar 300 billion dollars Congo waddanka Congo oo ah wadamada adduunka Afrika ugu weyn adduunka ugu weyn oo 60 milyan oo ku nool yihiin oo adduunka waddanka ugu taajirsan khayraad marka la yiraahdo 60 milyan oo qof wax soo saarkooda wuxuu ahaa 12 bilyan oo dollar waxa difference ka sameeyahay waxa weeye aqoonta weeye waa human capital waxa la yiraahdo aqoontiina idinka weeye inta dawladda weeye inta opportunity-ga dagaal ka nabad gashay opportunity ku heshay inay wax barato weeye marka waxaa laga rabaa aqoontiinii waddankii lagu celiyo waxaa kaloo looga baahan yahay in waxaa laga yaabaa in badan oo idinka mid iyo caadiya waxa ah first generationka weeye waxa Soomaaliya ka fakaraya inta timid weeye intaa dhasheen waxaan isleeyahay 70% waa nuujiyaan weeye waxaad kaga talagelaysaa in halkaa joogo marka inta goorgoor tahay in waddanka lagu celiyo in dhaqaale lagu celiyo in aqoon lagu celiyo
in aqoonta aad hesheen garashada aad hesheen dimuqraasiyadda aad fahamteen institutionska wanaaggiisa aad aragteen xataa intaa ina celisaan waa laftigeeda waa dadnimo wey example baan kuu sheegaayo hadda ka hor markaan Mareykan tegay waqti waxa weeye ninka Ronald Reagan uu ahaa madaxweynaha marka waxaan ku socotay dacwad oran jiray Iran contra affair maana la socotaan in kale marka gabadha Barbara Walters oo ah wadiye ayaa wareysanaysa ama markaas xamak ka waa 86 markaas waxay leedahay madaxweyne su-aasheeda kamaada jawaab su-aasheeda ka jawaab markaas way ku qaylinaysaa kasana waxaan leeyahay wargeedan qaylada badan madaxweynaha soo lahaysa laakiin waxaan fahamsanayn inay dimuqraasiyad tahay inay su-aasha weydiin karto xataa maana fahamsanayn marka waxaan isleeyahay waxa weeye exposure xataa aad hesheen keliya nidaamka aad hesheen garashada aad institutionska fahamteen laftigeeda waxa weeye waxaan kaloo idinka rabnaa in aad noqotaan waddanka waa timaadeene wada soo dhaweeyey you're adapted country weeye inaad shuruucdiisa ilaalisaan inaad ixtiraamtaan taasaad magaca Soomaaliyeedna ku ilaalin kartaan marka magaca Soomaaliyeed ilaalisaan oo aad ilmihiina wax bartaan oo aad shaqaysataan oo aad noqotaan dad jira waana tihiin wasiirada ay sheegay runtii in community Soomaaliyeed ay sumcad wanaagsan ku leedahay waddanka markaas ayaad noqonaysaan good ambassadors waxaad noqonaysaan ambassador wanaagsan ayaa Soomaaliya noqonaysaa markaasaad Soomaaliya u noqonaysaan advocates oo Soomaaliya aad u doodaysaan wadankii in wax lagu celiyo la taageero oo wadanka aad joogtaan oo wax taro marka door weyn wax badan baa nagu xiran iyo la socda waxaan ku soo gabagabeynayaa midnimo Soomaalinimo wallahi waxaan Soomaalinimo ahayn oo midnimo ahayn in wax gaaro runtii sheegaya bartaawe waxaa dadka Mareykanka ahi waxaa jirta wax la yiraahdo 6 degrees of separation macnaheedu waxaa weeye waxaa dadka Mareykanka ahi waxay isu jiraan lix oday ka tirsan baa yiraahdaa macnaheedu maxay tahay qabiil maaha waxaa weeye haddii John uu yaqaano Michael uu yaqaano Ted tadna uu yaqaano Susan Bill Clinton waa taqaan marka waa lix oday isugu tagaan وانا ضبطه صدح بقول مليون قفوي انه waxaan soo tagnaa marka tadamir hadana imagine midin hatta wadi loo separation Soomaali meelaha qaraabo badan ma jirto laga soo bilaabo raaska meelaha asxasir uma walaalaanahay waxa loo baahan yahay midnimo Soomaalina wadankeena taasoo horumar ku gaaraya idina taasoo ku gaaraysan assalamu alaykum warahmatullahi kusoo dhawow dalka Norway sidaad u aragtaa soo dhaweynta dadka Soomaalida ee dalkan degan oo in badan la kulantay runtii waxaan u arkaa si aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad u sharaf badan waxaan u arkaa inay yihiin dad Soomaalinimada ay ku dheerta maartay rajo wanaagsan iyo maartay hidiilo cusub waan isleenahay Ilaahay Soomaaliya maantay tubtiisa sanad bay talada macnaha lugta saartay aad baan soo dhaweynaynaa aragtidaada ra'iisul wasaaraha run ahaantii waa farxad beenoo annaka haddaan reer Norway nahay waxayna
waxayna tusaysaa ummadda Soomaaliyeed haddii aan nahay reer Oslo midnimada aan leenahay iyo sidaan iskugu duuban message waxaan u gudbinayaa dhammaan qurba joogta Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan oo mar walbaba niyadda ay ku hayaan horumarka iyo dib u dhisida dhulkanaga Soomaaliyeed aragtidaada maanta ra'iisul wasaaraha dalka yimi sida Soomaalimada aad ugu faraxsan tahay waxaad ka aragtay bismillaahi raxmaani raxiim waxaa farxad weyn ah dawladda Soomaaliyeed oo hogaaminaya Cabdulle Maxamed Gaas inay noogu timid magaalada Oslo maantay oo ay aad noogala qayb qaateen noona tilmaameen wadadii aan mari lahayn oo ah Soomaalinimada saxda ah in dawladda Soomaaliya dib loo soo dhiso inay xuquuqdeena soo noqon doonto inaan ahaan doono dad jira oo adduunka ka tirsan oo cayaaraha ka qayb gala tartamada ka qayb gala shirarka ka qayb gala caawino in fact xataa wadamada dariska nala ah insha Allah wadankeena gadaal loo soo celiyo marka waxay noo tahay farxad aad u weyn and special aniga waxay farxad weyn ii tahay dawladda maanta Soomaaliya ka magacaada tirirka u waaweyn inay ka yimaadeen magaalada Dhuusamareeb inay ka soo wada baxeen hal school inaan ka wada nimid hal deegaan taasina waa farxad aniga gaar ah